ujeedada guud ee maanta halkaan isugu nimi waxa weeyaan waa wada tashi aan ka tashanayno isbeddelka cimilada sidii loogu dari lahaa manhajka dugsiyada hoose dhexe ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Manhajka dugsiyada hoose dhexe wuxuu soo socday muddo dheer. Sanadkii ugu dambeeyay 2025 runtii waxaa laga qabtay shaqo weyn oo ah dib u eegis ballaaran lagu sameeyay dhammaan manhajka dugsiyada hoose dhexe iyadoo laga guuray nidaamkii hore oo ku salaysnaa ee la odhan jiray afka qalaad outcome based curriculum loola guuray nidaam casri ah ama afka qalaad loo yaqaano competency based curriculum ama habka kartida. Markii manhajka la sameeyay waxaa dib u eegis dhammaystiran lagu sameeyay markii hore siyaasadda waxbarashada. Siyaasaddaas markaa waxay gaargaraysay qaabkii manhajka dugsiyada hoose dhexe loo gudageli lahaa. Markaa manhajka dugsiyada hoose dhexe waxaa lagu daray arrimaha caalamiga ee adduunka ka jira oo ugu horreysay cimilada, maadaama cimiladu tahay arrin caalami ah oo saameysay nolosha bini'aadamka, xayawaanka iyo deegaanka, isla markaana caawa sii saameysay wadamada Afrika iyo wadamada sub-Saharan ka hooseeya iyo gaar ahaan dalkan ay ku leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Sidoo kale manhajka waxaa lagu daray waxa loo yaqaano civic education ama waxa loo yaqaano wadaniyad. Labada arrimood iyo arrimo kale oo ah tiknoolajiyadda lagu daro maadaama lagu jiro qarnigii 21aad in la baro ardayda qaabka tiknoolajiga loo isticmaalo. Manhajka arrimahaas markii lagu daray waxaa 2023 adduunka ka bilaabay mashruuc la yiraahdo Climate Smart Education Initiative. Isla markaana Soomaaliya soo gaadhay 2024 ayaa waxaa la qaatay khubaro caalami ah oo ka socota hay'adda Save Children بالمنهج كدكسيده hoose dhexe qaabka climate-ka ama cimilada ay gelin inay nala eegaan. Marka waxaa la qaatay khubaro caalami ah maanta in lama joogaan sababo jira awoodeed oo adilay ku yara yimid laakiin online ahaan iyo qaab si ma fogaan araga inta badan lagula shaqeeya. Waxaa kaloo la qaatay khubaro gudaha ah oo isugu jira kuwa bartay cimilada iyo kuwa bartay manaahijta oo maanta halkan la joogaan kuwaasoo insha Allah soo bandhigi doona qaabkii climate-ka loo geliyay manhajka dugsiyada hoose dhexe. Marka maanta jaamacadaha, iskuulada, macallimiinta iyo khubarada kale maanta halkan laydinku yeedhay waxa weeye bal marka hore ka wasaarad ahaan inaan soo bandhigno qaabkii climate-ka aan u gelin isla markaana idinkuna bal wixii contribution ah aqoontiina, xirfadiina, waayo aragnimadiina inaan nagu biirisaan dabadeedna halkaa go'aan lagu gaaro inagoo ayna gaargaraynayaan khubarada gudaha loo qaatay iyo khubarada caalamiga. Marka haddii la yidhahdo maanta waxaan kusoo bandhigi doonaa maadooyinka sayniska iyo socialka. Marka insha Allah waxay rajeynayaan niyad wanaag iyo dhabar adeeg maanta inaan noo muujisaan shaqada maanta inoo taala. Kulley shaqadana inoo taala waa laba ujeedo inaynu identify garayno climate change issues wadanka saameynaya kuwa inaga inoo muhiim ah priority-ga kuwa inoo ah inaynu isla garanno iyo inaynu raadino hababka loo dhexgelin karo manhajkeenan dugsiyada hoose dhexe si loo dhexgelin lahaa. Marka hadhowna aynu isla qaadano yaa ka mas'uul noqonaya hawshan sii wadideeda, fulinteeda, dabagalkeega. horta intaas ugu muhiimsan runtii sida hore looga dhawaajiyay manhajka dugsiyada hoose ee Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay dib u habayn iyo casriyeyn baa ku socday. kulankan iyo hawshan hadda socotaana waxay qayb ka tahay casriyeynta. Si gaar ah waxaa focuska loogu saari doonaa haddii la yiraahdo xilligan hadda aynu joogno sidii loo quweyn lahaa manhajka dugsiyada hoose dhexe iyadoo la eegayo isbeddelka cimiladu ay ku keento waxbarashada. Waxaa looga dalaya marka in awareness-ka iyo wacyiga ardayga kor loogu qaado xilliga waxbarashada dugsiga hoose dhexe ku jiro iyo in lagu baraarujiyo wixii door ah ee xaggiisa ama xaggeeda ka saaran ilaalinta cimilada oo ardaygu uu noqdo mid fahansan cimilada deegaanka uu ku nool yahay iyo isaga doorka uga bannaan markay noqoto maxaa ku dhahay ilaalinta deegaanka. Kulley marka manhajku dhamaado maadooyin gaar ah la target gareyn doonaa
markuu dhamaado manhajka dib eegtiisa hadii baa loo soo bandhigi doonaa ama waxa foundation workshop la yiraahdo loo qaban doonaa kaas dib markaa hadana loo eegi doonaa talada kama dambaysta ah ee manhajka qoyntiisa xagga climate change ku saabsan baa lagu kala qaadan doonaa hadii la yarka waa shaqo mugle aad baan ugu maadaqay wasaaradda waxbarashada oo ah taliilka Save the Children wasaaradda waxbarashada oo bay ka caawisaa istaraatiijiyada iyo qorshayaasha u yaala wada shaqayn joogto ah oo qoto dheer baan leenahay waxaa kaloo mahadnaqayaa qolada lacagta hawshan ku wada soo bixisay Global Partnership for Education leeyahay oo wasaaradda aad ula shaqaysa adduun badan la gelisa runtii farxad weyn oo tahay anaga wasaaradda ahaan in maanta aanu qayb ka noqono horana asaan rajeynayno aanu qayb uga ahay ishiiga meesha yaalana waxa weeye waxbarashadii iyo climatekii sidee laysu maashgarayn lahaa meel laysugu geynaa waynu ognahay maanta adduunyadu marxaladda ay marayso iyo xagga climateka iyo environmentka sidii isu bedelayo waxaasna runtii waxaa sabab u ah waa innaga climateka amba environmentka sideedaba waxaan human being geysan horta kumay dhicin cidda keliya ee cadowga u ah maanta environmentka waa dadkii uu ilaahay meesha ku abuuray sidaa daraaddeed waxaa inagu waajiba inaynu ilaalino environmentkii amba deegaankeena ku noolay siday u bilaabmaysaana waxa weeye ilmaha markuu yar yahay ee uu early state education amba learning uu marayo waxaa muhiima in lagu barbaariyo amba lagu ababiyo deegaanku ku nool yahay siduu daryeeli lahaa amba uu ilaalin lahaa waxaa iyadana muhiima in sida taa lagu gaarayana wax kale maaha waa in curriculumkii ilmaha yar amba manhajkii uu baranayay inuu qayb ka noqdo environmentka amba deegaankii runtii barnaamijkan oo aynu haddeerto markaynu ka hadlayno manhaj aynu muddo wadnay haddeer waxaan aad iyo aad idinku soo dhaweynaya mar labaad inaynu si anba qaadno qaabkii aynu manhajkeennii uga dhigi lahayn manhaj nidaamsan oo la jaan qaadi kara xaaladaha kasta ee aynu ku sugannahay dowladda ku sugan tahay runtii manhajkaas aad la socotaanba waxa uu haddeerto intii aanu xukunka joognayba aanu wadnay sidii loo casriyeyn lahaa oo sidaa agaasimuhu sheegayba hadday tahay dhinaca cimilada iyo haddii ay tahay dhinacii wadaniyadda haddii ay tahay waxyaalaha ka hortagga musuqmaasuqa hadday tahay tiknolojiyadda casriga sidoo la jaan qaadi lahaa dhammaan arrimahaas waxay noqdeen waxyaabo badan oo aan lagu soo kordhiyey manhajkeenna aynu doonayno inuu noqdo manhaj ku salaysan kartida ardayga ee aanu ku salaysan manhaj sidii markii hore ahaan jiray manhaj ku salaysan xifdi ama intuu ardaygu xafido laakiin uu ku salaysan yahay fahamka ardaygu uu fahmo oo markaana uu ku apply gareeyo meelo kale ama waxyaalo kale oo aan hore u arag uu markaa ku dabaqi karo waxbarashadiisii kale arrintan aynu maanta eegaynaana waxa weeyaan sidii aynu uga qayb geli lahayn oo u xoojin lahayn oo u casriyeyn lahayn manhajkeennii siduu cimilada iyo isbeddelka cimilada imanaya oo haddeerto dunidu aad iyo aad ugu soo jeesatay sidii loo eegi lahaa maadaama ay cimiladeedu aad iyo aad isu beddeshay haddee waddankeenna ayadaba ka aragnaayo xaaladda iminka haddee roobabkii oo yaraaday oo aad uga yaraaday waddanka oo dhan la soconno xaaladaha abaarood lagu jiro waxay keenaysaa arrimahaas dee arrimaha cimilada khuseeyay ka mid tahay markaasi aynu u barno waxyaalaha keeni kara in cimiladu ay isbeddesho iyo waxyaalaha keeni kara in aynu inagu samaynay isbeddelkan oo ah dadku ay sameeyeen haddaynu nahay bani aadamku noolaa iyo haddii ay tahay wax dee sidooda isaga yimaada oo naturalka inaga wax kama qaban karno laakiin inagu aynu soo noqonaa jiro badan hadday tahay dee dhirtii la goynayey hadday tahay waxyaalihii kale aynu nolosheenna ku kaabaynay deegaanka iyo cimiladuna runtii waxay ka mid yihiin waxyaalaha ugu badan ee nolosheenna kaaba